السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقوا حفصة موسى نوحة كأي فاطمة علي وان سلامة يا أمدا كحيران برتيدا عن كل هي يوتيوبك حايدنكو سلامة يا سلامتي إسلامكو إلهي يري تحية مباركة من عند الله سلام تحية سلام مباركة بركيسن من عند الله إلهي حق سكتمي نبينا نقول صلى الله عليه وسلم اسكو سلامة دحدينا سلام كدب waxaan u rajeynayaa qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ah ama qof kasta oo Soomaali oo barnaamijyadeeda daawada si kasta xaalad kasta uu ku jiro iyo waqti kasta uu tahay inuu u wacnaado waqti kasta joogto ha ku wacnaado marxalad kasta oo ku sugan tahayna ha ku wanaagsanaato insha Allah maanta waa maalin Jimco ah bisha 9aad 12keedii waxaan rabaa insha Allah inaan halka maanta uga hadlo بروجرام عادي حساسي بروجرام كاس oo ah gabdhaha Soomaaliyeed way ay iyaga isugu mashquulsan yihiin way aysan u arkin cadawgooda waxay ila tahay gabdhaha Soomaaliyeed sababta ayna isku arkin iyagu sababta ayna cadawgooda ayna u arkin baan ka wadaa iyagu isu arkaan waxay tahay gabarba gabadha kale ciladeedii iyo waxay fiirinaysaa weak pointskeeda laakiin qofku hadduu isagu shakhsi ahaantiisa ku mashquulo ama weak pointskiisa ku mashquulo ama isagu meeshuu ka liigaya ee ka jilicsan yahay uu ku mashquulo ma dhacaysa markaa inuu qofna qofka kale ku mashquulo marka anu waxaan dhihi lahaa gabaray intaad gabar kula mid ku mashquulaysid oo maskiinada laga yaabee duruufta ay ku jirto inay duruuf adag tahay kabaheeda ma qabtid adigu mana ogid waxa ay ku sugan tahay gabadhaas maybe she is single mom with 10 kids or 7 kids or 5 kids or 3 kids or 4 kids waxa laga yaabaa inay tahay kaligeeda oo korinaysa 10 ciyaal 9 ciyaal 8 ciyaal 7 ciyaal 5 ciyaal 6 ciyaal yoolnaba no waxa laga yaabaa inaan hooyo u joogin qurba ay joogto aaba u joogin walaal u joogin mental support aysan haysan financial support aysan haysan hadduu adiga geelu ku dhalay waxa laga yaabaa iyada inuunan kuba u diin geelna u dhalin marka ha judge garaynin gabar miskiinada wadan ogeyn waxa ay ku sugan tahay haddaad adigu tahay qof energy badan haysato wadanka hadda timi maybe waxa laga yaabaa iyadu inay wadanka wax badan joogtay daasheen intaana ay kaligeed ahayd ilmo korinaysa ee laga yaabaa inay kuwa ka maqan yihiin laga yaabaa inay kuwa u joogaan laga yaabaa inaysan nin haysan laga yaabaa inaysan wax mental support ama financial support ama aysan haysan any stability whatsoever marka ha judge garaynin kabaheeda adigu ma qabtid waxaan ku leeyahay haddii aad tahay gabar nadaafad badan iyo haddaad tahay gabar dadnimo badan iyo haddaad tahay gabar qurux badan good for you aday ku fiican tahay laakiin gabar miskiinada walaashaaya Soomaaliyeed ee duruufta daris la ah qurbaha ka jirta ha judge garaynin waxaan ku dhahayaa nafteydana aan ku leeyahay adigana aan kugu leeyahay qof walba xaaladii dadku way kala duwan tahay laba qof oo isku xaalada ma jiraan qof walba xaaladiisu xaalada kale way ka duwan tahay marka ma ogid xaalada qofkaas ku sugan yahay okay haddii adigu aad ladan tahay oo nimco ku jirto ma laga yaabaa inay iyadu aysan waxba haynin madaxa dhulka ka ceshanayso waa suurtagal marka ha ku diganin waxaa jira hadda ka hor baan gabar anagoo dumar ah oo ilmo kaligood korinayno agoon aabala korinayno dee xaaladuhu iska adag yihiin oo ilmuhu yaryar yihiin oo baan isku calaacalay moogta gabar aan aad saaxiib u nahay walaalana nahay aan aad iskugu dhownahay isku calaacalnay markaa waxaa iri adduunyadu waa garaa waana galangeliyeysa adduunyadu waa giraa waana galangeliyeysa
mar buu gugu ku daahaa geelu ku dhala mar buu gugu ku daahaa geelu ku dhala mar baad se gaajiyaha raahadaadu golongosha mar baad se gaajiyo raahadaadu golongosha haddaadan geni haysan hadalkaagu male garow haddaadan geni haysan hadalkaagu gaabana haddaadan lacag haysan hadalkaagu way gaaban yahay meel ma gaarayo waxaa la yidhi micnaha qofku markuu lacag haysto xataa hadduusan qof waxba yahay uu yahay hadalkiisu meel dheer buu gaara haddaadan geni haysan hadalkaagu gaabana haddaadan garab haysan hadalkaagu male garow haddaadan garab haysan hadalkaagu male garow marka waxaan leeyahay adduunka lama ogo qof walba marxaladii xaaladda ku jiro ee gabar maskiina ee kula mida ha jaaj garaynin hana ku diganin yaa maxaa dayr cadgeel halaabo dib jiray uu cunay dugaago ninkii lahaa daydaya waqtigu waysdaba socdaa adoo deganaa abaar mar buu dirir ku daayo daruuruhu ku curtaanood xareed ku dabaalataa intay deeqda eebba maqan tahay intay deeqda eebba maqan tahay hadiilin hana iga dagaalin dubaayigu yaale wadnahayga damqashada alla wadnahayga damqashada kadaa wadnahayga damqashada kadaa marka waxaan leeyahay wadnahayga damqashada kadaa almuhim waxaan leeyahay gabar kastoy waxaad ku jirto ilaahay ha kuu wanaajiyaan waqtiga aad ku jirto iyo waayahaad ku sugan tahay laakiin yaan la isku diganin duruufuhu way adag yihiin yaan la isku diganin duruufuhu way adag yihiin yaan la isku diganin sababta waxa way kamaa tudiinu tadaan haddaa maanta ku didato haddaad adigu laadan tahay lalalalaan inan liita moogtahay mise waaba lumayo lixda saa habeenima dilowlaygu heesa yah sida laba mataana lalalalaan inaan noqono waa libin sida layla iyo qayd inaan noqono lama huraan mise waaba lumayo lixda saa habeenima dilowlaygu heesa marka calaa kulli xaal waxaan idin leeyahay qofna ma oga qofka kale wuxuu ku jiro yaan la isjaaj garaynin qof kastoo qofka kaleeto duruuftiisa u daa waa idin salaamayaa waa maalin jimco ah oo anigu ah Xafsa Muuse waxay ka Faadimo Cali oo idin leh waqtigaa joogtaanba ha idin wacnaado gabdhaha Soomaaliyeed ee single motherska ah I feel your pain sisters insha Allah ilaahay idinka waynu ka bixi doonaa anigaba odagaygu wuu maqan yahay marka waynu ka bixi doonaa duruufta insha Allah waynu hagaagi doontaa mar baynu insha Allah awlaaduna way kori doontaa ilaahay idinkii ilaahayna wuu noo hagaajin doonaa ilaahay qofku wuxuu ka malaysto ka helaa marka ilaahay wax wanaagsan aan ka malaysano inuu ilaahay awlaadna noo hagaajiyo inuu ilaahay aswaajta noo hagaajiyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما marka ilaahay awlaadeena iyo aswaajteena waxaynu hagaajiyo tii aan haysana ilaahay ha siiyo tii haysatana Allah ha u islaaxiyo ilaahay ha u cabiidiyo ilaahay ha u sakhiro ilaahay dhinaciisa wanaagsan ha soo aadiyo waa idin salaamayaa wixii kasta oo qalad oo aan dhahay
ونفتي الشيطان وحي أن صحينا إلهي حق سيكا أهادين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.